barnaamijkeennan xogta dahsoon waxaynu ku soo bandhigaynaa xogo inagaga dahsoonaa hogaamiyihii dalka Kuuba Fidel Castro oo isagoo dhintay 25kii bishii November sanadka 2016 iyadoo da'diisu maraysay in ka badan 90 sannadood. Fidel Castro oo siyaasadda ka fadhiistay sanadkii 2006 kadib muddo 50 sannadood oo uu xukumayay waddankiisa ayaa waxa uu ka tegay mowqifyo iyo dhacdooyin uu ku lug lahaa oo taariikhda gelaya. Fidel Castro waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu xilliga dheeraa ee xukunka soo haya, waxaana uu ahaa hogaamiyihii ugu da'da weynaa ee taariikhda soo mara, isagoo markii uu xaalad caafimaad darro darteed uga degay kursiga sanadkii 2006 ku wareejiyay walaalkii Raul Castro. hogaamiyaha Kuuba waxa uu ahaa ninkii labaad ee jeediyay khudbaddii ugu waqtiga dheerayd ee qaramada midoobay, taasoo socotay muddo 4 saacadood iyo badh sanadkii 1960, halka sidoo kalena uu jeediyay khudbaddii ugu dheerayd ee waddankiisa gudihiisa, taasoo uu ka jeediyay shirweynihii xisbigiisa ee sanadkii 1986. khudbaddaas oo si toosa ugu weyday muddo 7 saacadood oo xidhiidha. Fidel Castro waxa uu ku doodi jiray inuu la kulmay in ka badan 600 jeer isku dayo la doonayay in lagu qaarajiyo, kuwaasoo badankoodu ahaayeen kuwo sid adag loo soo abaabulay ayna inta badan ku lug lahayd hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA. waxaana isku dayada ka mid ahaa sida uu hore u sheegay cuntooyin la soo sumeeyey, sigaar sumaysan, funaanadaha dabaasha oo kiimikaysan, dawooyin loogu talagalay inay timaha gadhkiisu ka daataan iyo qorshayaal kale oo abaabulan. Fidel Castro waxa uu la xilli lahaa oo xukunka hayay intii ay isbedelayeen 9 madaxweyne oo Maraykana laga soo bilaabo madaxweyne Eisenhower ilaa iyo Bill Clinton, iyadoo inkastoo ay Maraykanku cadaadis saareen cunaqabataynna ku hayeen muddo 40 sannadood ah, haddana uu Castro ku adkaystay mowqifkiisii siyaasadeed ee uu kaga soo horjeeday siyaasadda dalka Maraykanka. dhanka nolosha qoyskiisa, Fidel Castro waxa uu dhalay 8 carruur ah. inankiisa u weynaana waxaa loogu yeedhaa magaca Fidelito, waana aqoon-yahan dhanka nukliyeerka oo ay soo tababareen midowgii Sofiyeeti. waxaa kaloo ka mid ah inantiisii Elena Fernandez oo ay dhashay haweeney ka mid ahayd xaasaskiisa oo ka tirsanayd xisbiga shuuciga ee waddankaas. haweeneyda oo khilaafaad adag soo kala dhex galay iyada iyo Fidel Castro, dabeetana dalka dibadda uga baxday oo mucaarad ku noqotay, si weynna u dhaliili jirtay. xaaskii kale ee Fidel Castro oo ahayd Daniel Soto ayaa u dhashay 5 carruur ah oo dhammaantood magacyadoodu ka bilaabmaan xarafka E, waxaana ugu yaraa Antonio oo ah dhakhtarka xulka kubadda baseballka ee waddankaasi. saci uu lahaa ee maali jiray Fidel Castro waxa uu ahaa sac jebiyey rikoodhkii u yaallay caanaha laga maalo lo'da, kaasoo uu ka maali jiray caano fara badan, isla markaana xayeysiisu noqday inay dadka waddankaasi si weyn ugu jeestaan horumarinta beeraha lo'da sannadihii 80-yadii ee qarnigeena dhaafay. buugga Guinness ee la geliyay waxyaabaha la yaab kale ee dunida ayaa lagu daray saca uu lahaa Fidel Castro kadib markii uu jebiyey rikoodhkii u yaallay caanaha ugu badan ee sac keliya laga maalay, waxaana saca laga lisay 110 litir oo caano ah oo qiyaastii u dhigmaya 29 galaan.